madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay wasiiro cusub oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa. wasiirada uu magacaabay Laftagareen oo gaaray ilaa 3 xubnood ayaa kala ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta, iyo wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Aweys Xuseen Macalin oo loo magacaabay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka ayaa bedelaya Xuseen Maxamed Eelaay oo dhawaan loo doortay golaha shacabka. sidoo kale Cabdullaahi Sheekh Daahir Xudiin ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, halka wasiirka kalluumaysiga koonfur galbeed loo magacaabay Cabdullaahi Cabdi Cumar. heerkan waxa uu dhaqan galayaa markii uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu yiri wareegtada uuna saxiixay. Laftagareen ayaa faray wasiirada cusub ee uu magacaabay inay sida uga dhaqsiyaha badan kula wareegaan xilka loo igmaday.